wardegdega Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland oo goordhow shir jiraad ku qabtay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland ayaa si adag kaga hadlay xaaladda deegaanada Jubbaland iyo wixii shalay ka dhacay deegaanka Raaskambooni degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Axmed Madoobe ayaa ugu horreyn waxa uu shirkiisa jiraayay diiradda uu ku saaray eedan culus oo u jeediyay madaxda qaranka sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xamse Cabdi Barre oo uu sheegay in ay meel iska dhigeen dastuurkii qaranka isla markaana sharciga ay ku tumanayaan sida uu ku dhaliilay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxa uu soo hadal qaaday ciidanka qaranka in loo adeegsado siyaasad oo uu sheegay in ay tahay dambi weyn wixii dhacay ee Raaskambooni laga diiwaan geliyeen mas'uuliyadeeda ay leeyihiin madaxda qaranka sida uu sheegay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Madoobe waxa uu sheegay in cidna aysan u ciqaadeynin marka la eego ciidankii ka qayb qaatay wixii ka dhacay deegaanka Raaskambooni. waxa uu tusaale u soo qaatay sida Jubbaland ay u baxnaanisay dhaawacyada ciidamadii ku waxyeeloobay iska horimaadkii ka dhacay deegaanka Raaskambooni isagoo oo sheegay in qaarkood loo soo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si loogu daweeyo halka kuwa kale uu sheegay in dhaawacyo ay qabeen lagu daweeyay cisbitaallo ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaar ku ah Jubbaland. Axmed Madoobe waxa uu sheegay in gabi ahaanba askartii lagu qabtay dagaalka Raaskambooni dib loogu soo celin doono magaalada Muqdisho iyaga oo xurriyadooda leh. waxa uu sheegay in la qasbay oo aysan raali ka ahayn ka qaybgalka dagaalka iyo duulaan uu sheegay in jiritaanka Jubbaland lagu soo qaaday. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu 15 cisho uu qabtay ciidankii ku sugnaa Raaskambooni ee ka baxay halkaasi in ay isaga baxaan deegaanka balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dhaga adeegtay sida uu sheegay isla markaana ay timid in talaabadan ay qaadaan. dowladda federaalka Soomaaliya qoraal ka soo baxay ayay kol hore ku sheegtay in xeelad military ay kaga baxday deegaankan isla markaana ay doorbiday in aysan isku laaynin wiilasha Soomaaliyeed sida lagu qeexay qoraal kol hore ka soo baxay dowladda federaalka. hase ahaatee shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee maanta ka qabsoomay madaxtooyada qaranka ayaa diiradda lagu saaray wixii ka dhacay Raaskambooni iyadoo golaha wasiiraduna ay guddi baaris oo la xiriira in ay baaris ku soo sameeyaan cilaaqaadka ama xiriirka ka dhaxeeya Axmed Madoobe iyo Al-Shabaab isla markaana natiijada baaristooda ay soo bandhigi doonaan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore waxa ay soo saartay qoraallo ay ku eedeynayso Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uguna yeerayso eedeysane. Axmed Madoobe waxa uu jiran waaran soo qabasho oo kol hore ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir. wixii warar ay ku soo kordhay xiisadan wararkeena iyo warbixinadeena dambe ayaad ku daawan doontaan isha ku haya page-keena. nabadgelyo.